asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo laabasho wanaagsan waa saaxiibkiin Tamir Recap. filimku wuxuu ku furmayaa haweeney lagu magacaabo Melanie oo ku jirta tunnel dhulka hoostiisa iyadoo si argagax leh uga baxsanaysa makhluuq aan la arki karin. dadaal badan kadib waxay si xoog leh isugu jiidaysaa dhulka oo ay ugu dambeyn dusha sare ee godka ka soo baxaysa iyadoo si naxdin leh u neefsanaysa, laakiin waxaan la arkaynayaa dilaya. dhanka kale waxaa layna tusayaa koox asxaab ah oo ka kooban Clover, Max, Megan iyo lamaane la kala yidhaahdo Nina iyo Abe, kuwaasoo ku safraya wadda cidla ah. markii dambe waxay daawadaan fariin muuqaal ah oo ka timid Melanie, taasoo aynu ogaanayna inay tahay walaasha Clover. Melanie waxay raaligelin ka bixinaysaa sida xun ay ula tacaashay dhimashada hooyadood iyo sida ay guriga uga carartay. si lama filaana kooxdu waxay hadda joogaan isla kaalinta shidaale ay Melanie joogtay markii ay fiidiyowga usoo duubaysay iyagoo halkaas ka raadinaya. Clover waxay u gashaa dukaanka waxayna mulkiilaha tusaysaa sawirka walaasheed iyadoo weydiinaysa inuu arkay. ninku wuxuu u sheegayaa inaysan ahayn qofkii ugu horreeyey ee dadkooda u maqan raadinaya. dadkuna inta badan waxay ku lumayaan tuulo la yidhaahdo Glory Valley. Clover oo rajo ka qabta inay walaasheed helayso ayaa saaxiibadeed u sheegaysa in laga yaabo inay walaasheed ay joogto tuuladaasi uu ninku u sheegay. kooxdii waxay baabuurkooda u jiheeyeen dhankaasi tuuladii Glory Valley iyadoo roob xoogan iyo onkad dhacayo, laakiin waxay ku wareerayaan wadooyinka oo lama helayo dariiq cad, waxayna ku wareegayaan goobo isdaba jooga waana ay lumayaan. ugu dambeyn waxay istaagayaan meel aad u qurux badan oo ku taal meel xarun ah, halkaasoo daruuro madmadow ku dul fadhiyaan iyadoo uu eg in roob da-ayo laakiin dhulku uu qalalan yahay, wax signal ah ma jiro. Meganna waxa u sheegtaa inay tahay qof saadaaliye ah waxayna dareemaysaa in waxyaabo xun kusoo wajahan yihiin. Nina iyo Megan waxay u galaan gudaha xarunta taasoo u eg mid la dayacay. waxay helaan saacad ciid leh iyo buugga diiwaanka martida. Abe wuxuu arkayaa gidaar ay ku dhagan yihiin boodhar dadka la waayey. Clover oo weli banaanka joogta waxay maqashaa codka walaasheed, kadibna waxay aragtaa qof meel fog istaagsan. waxay u dhaqaaqdaa dhankaas iyo roobka. Maxna wuu raacaa laakiin Clover waxay ku luntaa roobka. Maxna wuu qayliyaa si ay u maqasho. Nina waxay buugga martida ku qortaa magaceeda. Abena wuxuu arkayaa in Melanie ay ka mid tahay dadka boodharka ku yaala. Max wuxuu gaadhayaa Clover isagoo kasoo kaxaynaya gidaarka roobka, waxayna kusoo noqonayaan xarunta. gudahana Nina waxay si dhow u eegtaa buugga waxayna arkaysaa magacyo dad badan oo ay ka mid tahay Melanie oo 13 jeer lagu qoray magaceeda. qoraalka gacantuna marba marka kasii dambaysa wuu sii jajaban yahay oo uu u muuqdaa midaan si fiican loo qorin. kooxdu way isku imanaysaa waxayna wadaagayaan waxa ay hore u arkeen. Clover waxay weli rumaysan tahay inay maqasho codka walaasheed. saacadii ciidda ayaa si lama filaan ah isu rogaysaa inkastoo aysan qofna taaban. codad yaab leh ayaa laga maqlayaa meel fog. dibadda ayay u baxayaan waxayna arkayaan baabuurkoodii oo la geeyey dhanka roobka. waxay malaynayaan in tuugu xadayo. Abe iyo Nina waxay go'aansadeen inay baabuurka ilaaliyaan, kuwa kalena waxay u baxeen si ay telefoon u helaan. waxay tagaan basementiga dhulka hoostiisa ee guriga. Maxna wuxuu la yaabaa in daaqada dhulka hoose ku taalo. Clover waxay heshaa telefoon duug ah laakiin wuu jaban yahay. waxay isku dayaysaa inay isticmaasho raadiyaha laakiin wax jawaab ah lama helayo. Nina iyo Abe waxay maqlaan sawaxan. Abena wuxuu gelayaa qolka keligii markuu dib u soo noqon waayo. Nina ayaa iyaduna ka dabagelaysa qolka. markay ka dabagasho waxay la kulmaysaa nin qaba maaskara oo cabsi badan, halkaas ayuuna iyadana ku dilayaa. Max oo hoos jooga wuxuu maqlayaa qaylada Nina wuxuuna arkayaa meydkeedii iyagoo gacanku dhiiglihii dul taagan yahay. dilaagu wuxuu arkayaa Maxna wuu soo cararayaa oo kuwa kalena wuxuu ku wargelinayaa inay isqariyaan. dilkaas kadib gacanku dhiiglihii maaskiga xidhnaa wuxuu hoos ugu soo degayaa basementiga. Maxna wuxuu qabsanayaa kursi oo wuxuu la dhacayaa dilaagii, balse dilaagu ma uusan dareemin. islamarkaa dilaagii wuxuu Max mindi kaga dhufanayaa isha, islamarkiiba uu dhintaa Max. Clover iyo Megan waxay daawanayeen waxaasoo dhan meel ayay ku dhuumanayeen iyaga oo ilmadu ka dareerayso. gacanku dhiigluhu wuxuu soo gelayaa meesha ay ku jiraan. Cloverna si qarsoodi ah bay mindi uga qaadataa miiska, laakiin nasiib darro Megan ayaa la helayaa iyadoo armaajo ku jirta. lugaha ayuuna ka jiidayaa kadib si naxariis darra ayuu dilayaa. Clover waxay mindida kaga muddaa dhabarka ninka dilaaga ah laakiin taasi wax saameyn ah kuma yeelato. waxay u orodaa kaynta laakiin waxay istaagtaa markay aragto qof u eg walaasheed. nasiib darrase gacanku dhiigluhu wuxuu kaga dhuftaa dhabarka faash, halkaas ayayna ku dhimataa Clover. filimku wuxuu gelayaa marxalad kale oo cabsi leh. saacadii ciidda ayaa gadaal isu rogtaa, wax walbana dib ayay u bilaabmaan. si lama filaana kooxda oo dhammi way nool yihiin waxaana isku arkaan inay joogaan isla habeenkii ay dhimanayeen. iyagoo yaaban ayaa midba midka kale waxa uu weydiinayaa waxa dhacay iyagoon waxba fahmin. Abe wuxuu tusayaa in sawiradooda lagu daray derbiga boodharka dadka la waayey. ama kaagiyo argagax ayaa qabsanaya marka ay isku dayaan inay fahmaan waxa dhacayna. intaa kadib intii ay kooxdu ka doodayeen suurtagalnimada ay kaga baxsan karaan meeshan, Megan ayaa xanuunsanaysaa waxaanay sheegaysaa in habeenkan uu ka daran yahay kii hore. si lama filaan ah jidhkeedu wuu ruxmayaa waxaanay ku qaylinaysaa qaylio naxdin leh oo jebisa nal kasta oo guriga ku yaala. kooxdii waxay si degdeg ah u shitaan iftiin laakiin waxay u ogaanayaan in Megan ay si qarsoodi ah u luntay daqiiqada gudahooda. Clover waxay maqashaa cod daciif ah waxayna kooxda u hogaamisaa qolka ay ka buuxaan waraaqaha dadka la waayey. halkaas ayayna ka helaa Megan oo dul sabaynaysa hawada iyadoo ku sugan xaalad miyir beel ah kuna
hadlaysa hadallo aan la garanayn. waxay bilaabaysaa inay farta ku tilmaamto waraaqaha kuna hadasho codad kula duwan oo cabsi ah. kooxdu waxay garwaaqsadeen in Megan ay ka dhex hadlayaan ruuxaamaha dad kale la'yahay, kuwaasoo iyaga ka baryaya in la badbaadiyo. daqiiqada yar gudahood Megan si xun ayay luqunta u jabisaa oo si dhaqso ah ayay u dhimataa. kooxdii cabsi ayay la daateen, waxayna bilaabeen inay ka wada hadlaan waxay samayn lahaayeen. isla markaas ayuu dhawaaq xooqani ka yeedhay albaabka hore. Abe wuxuu eegaa dhanka dibadda, laakiin ciidima joogto. isla markaas ayay maqlaan codka Melanie oo ka hadlaysa dhinaca kale ee albaabka, iyadoo ku amraysa in laga furo albaabka. tani waxay ku ridaysaa Clover argagax. inkastoo saaxiibadee si degdeg ah u codsanayaan inaysan furin, haddana way furaysaa, laakiin ciidi dibadda ma joogto. taas beddelkeeda guri cusub oo aan hore u jirin ayaa si lama filaan ah uga muuqanaya hortooda. Clover waxaa hawada ku tuuraya awoodaan la arki karin. asxaabteedana waxaa lagu xidhayaa gudaha xarunta. Clover waxaa si tartiib ah loogu jeedayaa dhanka guriga cusub, waxaana si xoog leh ugu dhacdaa gudaha guriga iyadoo albaabka si daran u xidhmayo. dhanka kale Max wuxuu isku dayaa inuu raaco Clover, laakiin saaxiibadiis ayaa joojinaya, waxayna ku leeyihiin khatar ayay tahay arrintaasi. Max wuu xanaaqaya, wuxuuna ku qeylinayaa saaxiibadiis, kadibna keligii ayaa soo baxaya. Clover waxay kusoo baraarugtaa iyadoo joogta qol mugdi ah oo ay ku wareegsan yihiin caruusado leh wejiyo maaska ku xidhan yihiin oo cabsi leh. markay eegto agagaarka waxayna aragtaa haweeney duq ah oo maaskiga oksijiintu ku xidhan yahay oo hor fadhida TV-ga iyadoo aamusan. markii ay isku dayday inay baxdo, haweeneydii si cabsi leh ayay u hadlaysaa. waxay ku leedahay hal waddo oo keliya ayaa jirta, si aad u noolaatid habeenka waa inaad qayb naga mida noqotaa. waxayna u muuqataa sixiroole, waxayna ku qasabtay Clover inay ku neefsato maaskigeeda. markaas ayay sixirooladii bilaabaysaa inay burburto, iyadoo Clover ay bilaabaysa inay ruxanto ayna dhex gasho ruuxaantii islaantu. daqiiqada kadib Max wuxuu soo gaarayaa gurigii, halka Abe iyo Nina ay gaadhigoodii galeen. Nina waxay dareemaysaa qoomamin ku saabsan inay saaxiibadood ka tagto, laakiin Abe wuu iska indhatiraya, wuxuuna xirayaa daaqadaha gaadhiga isagoo maraya roobka. si lama filaan ah makhluuq aad weyn ayaa jidka hor istaagaya, waxaanu ka khasbanaanayaa inay dib u noqdaan. Nina waxay isku dayeysaa inay albaabka furto iyadoo argagaxsan, laakiin si lama filaan ah ayay u arkaysaa saaxiibkeedii oo dhintay. markaas ayay ninkii maaskiga xidhnaa mar kale soo muuqdaa. dhanka kale Max wuxuu si cabsi leh u baadigoobayaa Clover, wuxuuna gaarayaa qolay ka buuxaan alaab carruur oo cabsi leh. intaa kadib arrinkan cabsida leh ayaa dhacaya. Clover oo ay maskaxdeedu la wareegtay ruuxaantu ayaa waxay kusii socotaa dhankaasii xarunta, laakiin waxaa si lama filaan ah u jiraya baabuur oo wada ninkii maaskiga xidhnaa. halkaas ayay ku dhimataa. kadib mar kale ayaa la gelayaa wareeg cusub. kooxduna waxay bilaabaysaa inay isweydiiyaan haddii ay wax walbaaba mar kale sidii hore u dhacayaan. waxayna go'aansanayaan inay iska xidhaan albaabada ayna galaan musqusha, iyagoo rajaynaya inay badbaadaan habeenka ilaa waagu bariyo. Abe wuxuu cabayaa biyaha tuubada, wuxuuna weydiinayaa haddii qof kale doonayo. dhammaantood way ogolaanayaan maadaama ay si xun ugu daaleen waxyaabahan cabsida leh ee kasoo wajahay. intaa kadib Clover waxay kooxda u sheegaysaa hadalka ay sixiroolada ka maqashay, balse markaas ayuu ay bilaabayaa inuu dhiig qufaco iyadoo uu isku dayay inuu qariyo, laakiin qufac ayaa sii xoogaysanaya ilaa uu noqdo mid aan la xakamayn karin. si argagax leh ayuuna u qarxayaa, dhiig ayaa ku faafaya qof walba. Nina oo argagaxsan ayaa u cararta tuubada biyaha si ay u cabto, isla markaana Megan ayaa ku qaylinaysaa iyadoo u sheegaysa inay biyaha cabin, laakiin way kasoo daahday. Nina sidoo kale way qaraxday. kooxda intii hadhay waxay si degdeg ah uga cararaan musqusha, laakiin wax yar kadib Meganna si xun ayay u qaraxdaa. markaas ayay Clover oo cabsi la hirqanaysaa ka baryaysaa Max inuu isla iyada uu dilo si ay mar kale u bilowdaan wareeg cusub. Clover dhulka ayay ku dhacaysaa iyadoo naxsan. in yar kadib waxa uu soo galaya nin si cabsi leh u socda oo magaceeda u yeedhaya, waxayna ogaanaysaa inuu yahay isla ninkii ka shaqaynayay saldhigga shidaalka. wuxuuna leeyahay waxaad ku dhowdahay inaad badbaado, laakiin badbaadada laguma helo fadhiga. isla in yar kadib Clover sidoo kale way qaraxdaa. markaas ayay saacadda dib isku celisaa, mar kale ayay wareeg cusub galayaan. Megan timaheeda ayaa bilaabaya inay si xawli ah u daataan, waxayna dareemaysaa in ilka kale oo dheeraada u soo baxayaan. kooxdu waxay go'aansanayaan inay baaraan taariikhda tuuladani, waxaanay bilaabayaan inay faylasha duuga ah ka soo saaraan khaanadaha hoosteeda. halkaas waxay ku ogaanayaan in ninkan kaalinta shidaalka ka shaqeeya uu dhab ahaantii yahay dhakhtar la yidhaahdo Alan Hill. waxayna ogaanayaan in 20 sano ka hor dhacda ay ku dhacday, isla markaana macdan ay sababtay dhimashada in ka badan 1,100 qof. macdanta ayay aad u sii qoteen, taasoo sababtay burbur weyn iyo in bartamaha magaaladu ay dildilaacyo samayso, taasoo magaaladii ka dhigtay inay dhulka ka hoos marto. Dr. Hill oo ahaa dhakhtar ku xeer dheer la tacaalidda dhaawacyada maskaxda ayaa gobolka loo diray si uu caawiyo dadka badbaaday. taasi waxay sharaxaysaa sababta uu dhismaha xarunta martidu uu u yahay mid la yaab leh iyo daaqadaha dhulka hoostiisa ku yaala. Nina waxay aragtaa albaab hoos ku yaala, waxayna u malaynaysaa in laga yaabo inuu yahay marinka baxsiga, laakiin waa marin mugdi ah oo naxdin leh, taasoo ku qasbaysa inay xidhaan. kooxdii waxay daawadaan cajalada heleen, waxaana lagu arkayaa nin ku jira qol xidhan kaasoo ooyaya isagoo leh maxaan mar walba dib ugu soo noqonayaa. Dr. Hill ayaa
ayaa codkiisa laga maqlaa isagoo sheegaya inuu baarayo xaalada nafsadeed ee dadka ka badbaaday musiibada. wuxuu sheegayaa in bukaanku leeyahay calaamado halisa sida nafaqadaro iyo tabadaro muruqeed, laakiin tan ugu daran waa cabsi aad u weyn, niyad jab iyo rajada oo si buuxda u luntay. kadib 23 maalmood oo xidhnaa, ninkaas wuxuu isku bedelayaa makhluuq lagu magacaabo Wendigo oo mar walba gaajaysan. markaas ayuu Dr. Hill la soo xiriiraya kooxda isagoo raadiyaha kala hadlaya, wuxuuna leeyahay hadda ayaad wax fahmaysaa. Clover oo cabsi iyo argagax daran hayo ayaa ku wargelinaysa Hill inuu iska sii daayo, laakiin Hill wuxuu sheegayaa in midkood uu dhimanayo si afarta kale ay u badbaadaan, sidaa darteed laga rabo mid asxaabtiisa kale naftiisa u huraya si ay u badbaadaan. laakiin Clover ma ogolaanayso arrinkaas, waxaana ay ku wargelinaysaa inay rabto in isaga la kulanto. Dr. Hill wuu ogolaanaya, wuxuuna u sheegayaa inuu la joogo walaasheed Melanie, laakiin wuxuu u sheegayaa in kaliya Clover loo ogol yahay inay timaado. kooxda waxay isku dayayaan inay joojiyaan, balse Abe ayaa taageeraya arrinkaasi una sheegaya inay la kulanto. markaas ayay baxaysaa. kadib kooxdu waxay ku eedeynayaan Abe inuu yahay qof danaysta ah oo keligiis ka fikiraya. Max wuxuu soo jeedinaya inay raadiyaan waddo cusub ama inay isdilaan si wareeg cusub loo bilaabo, laakiin Abe wuu diidaya. wuxuu xasuusinayaa in Clover hore 2 jeer isku dayday inay isdisho wareegyadii lasoo dhaafay, sidaa darteed muhiim ma aha haddii ay hadda dhimato. Nina oo xanaaqsanaya qalab bir ah ku rufatay Abe. kadib waxay Max iyo Megan u dirtaa inay raadiyaan Clover. dhanka kale, Clover waxay ku sugan tahay gudaha keynta. markaas ayay si lama filaan ah ugu dhacdaa dab inuu si fiican loo qorsheeyey. silsilad ayaa ku qiijismaysa lugteeda, waxaana si xoog leh hawada ugu kacdaa iyadoo si xun loogu jiidayo dhanka keynta. dhinaca kale ee xarunta, Nina iyo Abe waxay yeesheen wadahadal xanuun leh oo ku saabsan xaaladooda daran, laakiin wadahadalkoodii ayaa la joojinaya marka ninkii maaskiga xidhnaa uu hal mar usoo dul istaagaya si cabsi leh, meeshiina uu ku dilayo. goobta kale, Max iyo Megan waxay si adag ugu raad joogaan Clover iyagoo dhex socda keymaha cidhiidhiga ah, laakiin si lama filaan ah waxaa usoo muuqda qaaq cabsi badan, taasoo iyagoo soo dhuumanaysa. labadooduba way cararayaan si ay u badbaadaan, laakiin Megan way siibanaysaa, waxaana ku dhacdaa saqafka guri duug ah oo muraayad ka samaysa. Max ayaa si degdeg ah u doonaya inuu badbaadiyo, laakiin qaaqda ayaa lugta kale ka qabsanaysa, taasoo keentay in saqafkii ugu dambeyn dumo. qaaqdii ayaa Megan jiidanaysa isagoo kusii dhex jiidanaya guriga dhinaciisa hoose. waqti kadib, Max wuxuu ugu dambeyn dib u helayaa Clover, wuuna ka xoreynaya dabinkii silsilada ahaa, laakiin markaas ayay weerar kusoo qaadaysaa qaaqdii oo noqonaysa Melanie lafteeda. labadooduba way cararayaan, waxaanay gelayaan meel ay isku qariyaan. Clover oo murugo la jabtay ayaa ku leh Max, waan khaldamay, waxaana ay gacantiisa u gelinaysaa muraayad jarjaran si uu u dilo. Max si dhib badan ayuu ugeynaya cunaha Clover, wuxuuna ka cabayaa biyaha wasakhaysan. wax yar kadib, qaaqdii Melanie ayaa soo muuqata, laakiin ka hor inta aysan weerarin Max, isaguna si lama filaan ah ayuu u qarxayaa. markii wareega xiga la gaadho, xaaladda ayaa kasii daraysa maadaama jirka Abe uu muuqanayo inuu bilaabay inuu isku bedelo qaaq. Clover waxay weydiinaysaa inta habeenee la joogo, waxaana Nina ku dhahdaa inay joogaan habeenkii 13aad sida ku cad buugga diiwaanka. waxyaabaha ugu sii daran ayaa in qofna uusan badbaadin doonin 13 habeen. kooxdu waxay eegayaan daaqada, waxayna arkayaan guryo badan oo cusub oo si lama filaan ah ugu soo kordhay hareerahooda. kadib waxay dareemayaan in Megan aysan muuqan, waxayna si degdeg ah u eegayaan taleefanka Abe oo uu wax walba ku duubay. muuqaal walba wuxuu muujinaya geerida kooxda, weeraro ay ku jiraan dirxi hilib cun ah, qaaq iyo ninkii maaskiga xidhnaa ee qarsoodiga ahaa. muuqaalka ugu dambeeya wuxuu ahaa mid uu duubtay Megan oo si qarsoodi ah ula socotay Dr. Hill si ay u hesho habay meesha uga baxsadaan. markaas ayay maqlayaan dhawaqa diyaarada duqeynaya cirka, waxayna arkaan dhowr qaaqa oo u soo socda dhanka xarunta. kooxdu waxay si cabsi leh u go'aansanayaan inay maraan marinkii madooba ee hoos uga bixi jiray basementiga si ay u raadiyaan Megan. kadib markay hub isugu diyaariyaan, waxay gelayaan marinka mugdiga iyagoo halkaa kula kulmaya qaaq fara badan. kadib orod, dagaal iyo cabsi fara badan, si mucjiso leh ayay ugu baxsanayaan makhluuqaadkaas. laakiin nasiib daro, ninkii maaskiga xidhnaa ayaa halkaas ku sugnaa, weerara ayuuna kusoo qaadaya. Max ayaa ku qaylinaya inay Clover baxsato, halka iyaguna la dagaalamayaan ninka. Clover way baxsataa, laakiin markay wax yar socoto waxay la kulantaa ruuxaantii Melanie. ruuxaanta ayaa isku dayaysa inay weerarto, laakiin Clover waxay garwaaqsataa intani aysan walaasheed ahayn, waxayna si xoog leh ugu tuurtaa bir kulul oo yaalay dhulka, halkaasoo ruuxaanta Melanie ay si degdeg ah ugu dhimato. Max, Abe iyo Nina waxay ugu dambeyn ku guuleysanayaan inay ninkii maaskiga xidhnaa dilaan, waxaana ay madaxiisa ku burburinayaan duba culus. Clover waxay gaartaa sanduuq duug ah, waxayna aragtaa Megan oo ku xidhan qol uu ruuxaan ku jiro. ay ruuxaan ku jirto, kaasoo silsilad lagu hayo. qolku wuu xidhan yahay, sidaa darteed Clover waxay bilaabaysaa inay raadsato furaha. waxay u gashay xafiiska Dr. Hill oo ay ka buuxaan kaamarado kormeer ah. markaas ayuu Dr. Hill soo gelaya isagoo shaah cabaya, waxaana uu koobka saarayaa miiska, waxaana uu sheegaya in Clover inay ahayd mid ka mid ah bukaamada ugu yaabka badan, maadaama ay qabto niyad jab daran, walwal xaddhaaf ah iyo isku dayo istil oo hore. wuxuu si lama filaan ah u sheegaya in makhluuqaadkan habeen walba uu imaanayo inay saaxiibadeed yihiin. intuu sii hadlayna, Clover waxay arkaysaa biyaha sumaysan oo dhibco ka midii kasoo daadanayaan tuubada, waxayna si qarsoodi ah ugu beegaysaa koobkii. kadibna biyihii ayaa ugu dhacaya koobkii shaaha. Dr. Hill wuxuu cabayaa shaahii isagoo aan ogeyn inuu sun yahay. wax yar kadib wuxuu bilaabayaa inuu xanuunsado, kadibna arrinkan argagaxa leh ayaa dhacaya.
Clover si dhaqso leh ayay u qaadataa furayaasha waxayna u carartaa inay xoreyso Megan. Labadooduba waxay isku dayayaan inay baxsadaan, saacadiina waxay ku dhowdahay inay rugmato mar kale, laakiin dhowr ruuxan ayaa daba socota. Si degdeg ah ayay u qodaan dhanka sare ee dhulka sida Melanie ay sameynaysa filimka bilowgiisii, laakiin markan saaxiibadooda ayaa ku sugaya xagga sare, waxayna gacan ku siinayaan inay baxaan halka saacadii ciidu ay dhammaanayso, taasoo calaamad u ah habeenkii sixirku dhammaaday. Qorraxdu way soo baxaysaa, waxayna kooxda ku dhacayaan cawska. Weli argagax ayaa haysta, laakiin nafis ayay dareemayaan. Ugu dambeyn waxay fuulayaan baabuurkooda, waxayna ka tegayaan tuuladii sixirka wadatay. Halkaas ayuu ku dhammaanayaa filimkeenu. Haddii aad rabtiin inaad la socoto filimaantaanu halkan soo gelina si maalinle ah, fadlan janaalka gudaha u gal, subscribe noo saar, gambaleelka furo. Mahadsanid.